بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Jiftah Cabdilaahi dad badan oo asxaabta ka mid ah ayaa waxay soo weydiiyeen sidee loo sameeyaa Facebook frame ama frame-kan marka qofku sawirkiisa soo dhigo ka soo horeeya dadka Snapchat-ka isticmaalo kale waxaa magaciisa la dhahaa GeoFilter location-ka kale kan sheega meeshaad joogtid halkaasaad joogtaa oo sawir ka soo qaaday marka Facebook-guna frames buu yaqaanaa qaar waxaa jira professional iyo qaar sawir iska taagan iyo qaar wejiga iyo madaxa dadka raacaya oo soo soconaya oo face detection leh marka waxaynu eegaynaa qaabka u samayn kartid Facebook frame static ah waxyaabo yaryar baa u baahan tahay haddaad rabtid inaad frame professional ah samaysid oo bilaa background ah waxaad isticmaali kartaa programmada sida Photoshop oo kale ama programmada wax lagu edit karo tusaale ahaan anigu waxaan rabaa inaan sameeyo frame loogu talagalay meesha xeebta ama qof markuu meel xeeba joogo Lido Beach oo kale Berbera ama Boosaaso oo isku soo sawiro frame markaa soo baxaya hadda ka hor waxaan sameeyey ciid midaan u sameeyey sidan oo kale u soo baxayey dad fara badan baa isticmaalay inkastoo aan markii dambe delete gareeyey frame kale oo fara badan aan sameeyey way jiraan oo halkan ku jira marka tusaale ahaan frame-kan rabno inaynu sameyno waa sidan sawirada beachka ama meelahan xeebta ayaynu waxaan ka soo qaadanaa sawir aan marka ka helnay kabacdina frame ayaynu ka dhignaa Facebook frame sawir ka mid ah baan soo qaadayba sawirka haddii aad doonaysid inuu yahay mid static oo iska taagan sida sawirka frame-ka noocyada noocan oo kale ah tusaale ahaan halkan oo kale frame baa ku jira frame-kan oo kale uma baahna inaa wax fara badan uma baahna calan ama wax inta badan wax lagu talagalay waxyaaba celebrity oo ama dabaaldegyo oo kale lagu talagalay marka hadda frame-kan oo kale professional maaha just qofka calanka unbaa soo baxaya marka noocaas oo kale haddaad samaynayso waxaad ku samayn kartaa programmada online-ka ah sida programkan la dhaho Picmonkey ayaa la dhahaa programkan oo kale ku edit garan kartaa haddaad doonaysid frame kaloo professional waxaad adeegsan kartaa programkan Adobe Photoshop hadda waa kan anigu kana rabaa inaan sameeyo waa aragta background-ka waa ka tuuray waxaan adeegsaday toolkan qofka Photoshop isticmaalo oo garanaya Magic oo dhahaa background-ka waa ka tuuray waxaan rabaa inuu adeegsato background markaad ka tuurtid waxaad tegaysaa Facebook meeshay ku qoran tahay hadda hoos soo degtid frameska meesha laga galo waxa weeye more ayaa dhahaysaa halkan markaas oo kale Facebook frame ayaa ku qoran Facebook frame ayaa ku dhufatid wuxuu ku geynayaa booskan ku geynayaa meeshan ku geynayaa ama waxaad geli kartaa facebook.com/fb oo Facebook loo soo gaabiyey camera effects ayaad gelaysaa /home toos haddaa URL-ka ama linkiga u gashid halkan ku keenaya kabacdi marka halkan waxaa haddii aad kuwa hore lahayd manage ayaa kuu soo baxaya oo halkan kale ku keenaya kuwii hore manage karee ama deactivate karee ama iska delete ama sidaas oo kale haddii kalena wuxuu ku leeyahay mid cusub samee marka waxaan leenahay create new frame sawirku waa diyaarsatay inta badan anigu sawirka 500 baa ka dhigaa height-ka iyo width-ka laakiin inta doonta baa ka dhigi kartaa hadda sida kugu filan so waxaan leenahay halkan ownerka doonaysaa page-kaagii iyo waxa lama ka soo baxaya iyo waxa la xilmaaminaysay oo dhan ayaa ka soo baxaya halkan waxaan leenahay select art ayaan leenahay kabacdi waxaan dooranayaa frame-ka ayaan soo dooranayaa halkan waa siduu ugu ekaanayo mobilada smartphones-ka kan oo kale xaggan waxaa ku jirta qaabka ugu ekaanaya tablets-ka qaabkaas oo kale ugu ekaanaya so markaad ku fikiraysid jiidid haddii aad doonaysid inaad mataqaanaa barti kasii qaadatid oo aadan u dirin oo aad doonaysid shaqadii qabyo kaa tahay waxaa dhahaysaa save as draft sida halkan oo kale aan draftiga u geeyey so tan oo kale draftiga ugu jirtay next ayaan leeyahay waxaan u bixinayaa beach I think saas uu kale yahay kadib waxaan soo baxdo xeeb hakad beach waa ereyada lagu soo raadinayo ee uu soo qabanayo like that intaasoo kale aan ugu filan wax fara badan loo baahnay kadibna saas aan leenahay sidana kale tabletka ugu muuqanaya mobilka sidaan waxaan leenahay publish markii aad mataqaanaa effectiga u dirtid hadhow waxba kama bedeli kartid marka requestiga soo dirsa okay waan ku qanacsanahay iyo publish kare qaabkaasi marka waa qaabka ugu sahlan ee aad u samayn kartid Facebook frame hadda frame-kayga waa la publish gareeyey waxaa maalin ka bacdi ama 2 cisho ka bacdi in laysoo jawaabo kabacdi waxaan leeyahay done aniga already wuu bay active gareeyay mar maraynayaaba waayo indoor wuxuu ku jiray
draftiga active hadda emoji I don't know in nashqadii hore bedeleen laakiin 2 days ama 3 days meelahaas ay qaadanaysaa in qofku waa frameka isticmaalo marka frameki waxaan kasoo heli karaa markaan profilkayga bedelayo ayaan ka heli karaa ama frame saaray soo hadda haddaan profilkayga eego add frame beach I need this page marka qof selfie ku gelaya oo xeeb jooga kala sawir selfie ku gelaya ayaa loogu talagalay marka framku qaabka kale u shaqeynaya backgroundkii uu ka daba muuqanaya marka qaab noocaas oo kale ayaa u isticmaali kartaa aad iyo aad ay mahadsantihiin channelkayga subscribe gareeya haddaad doonaysaan noocyada doon oo kale inaad aragtaan Facebook leeyahay iyo YouTube-ka wabilaahi tawfiiq